بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وقرنتي وحن أمد إلنا يا الله سبحانه وتعالى مركز حتى وحن سوق الأمد إلنا يا بالشدة الصوماليات أو يوتيوب channel كيجا يو ولي فيسبوك بيج كيجا كحلن ما أنتوا حربا إن كهالله عفمات كاي أباهنتهاي هاي أوركله سه أود عفمات قبا ودشة ويبدين عفمات كي أباهنتهاي هاي أوركله بس وحن وحكتها تابن دونا وحيابها عن إسلاي aad bay u muhiimsan yihiin waxaynu maqalnaa hooyo ilmuhu ka qubteen ama ka dhicisoween iyo tu ku dhasho xaalad caafimaad oo lidato dhammaan xaaladahan waxay ka dhashaan daruufaha iyo dhibaatooyinka la soo darsa hooyada xilliga ay uurka leedahay si kastaba ahaatee wacyigelintan iyo talooyinkan caafimaad waxaan ugu talagalay inaan gaarsiiyo hooyo waliba si ay uga faa'iidaysato walaal adigana igala qayb qaado sheergaree oo gaarsii hooyo Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaysato muuqaalkan imtixaanaha ah laga rabaa hooyada uurka leh inay sameyso si ay u dhasho ubad caafimaad qaba sida u dhasho hooyada uurka leh waxaa loo baahan yahay maalintii inay cabto 10 koob oo fruit cabitaanada fruitska laga shiiday marka 10ka koob 4 ka mid ah waa inay ahaadaan caano inay ahaadaan ayaa loo baahan yahay sidoo kale hooyadu waa inay iska ilaalisaa sigaarka iyo shishada iyo wix la mid ah ay ka fogaato xitaa meelaha lagu cabaayo maxaa yeelay maamooyinka balwadaas leh ama ka agdhow meelaha lagu cabaayo caruurta ay dhalaan waxay ku dhashaan ama qatar ugu jiraan cudurrada ku dhacay respiratory disease-ka ama cudurrada hawmareenada ku dhacay qatar ugu jiraan sidoo kale caruurta ay dhalaan way ka miisaan yar yihiin marka loo fiiriyo maamooyinka kale oo balwadaas aan lahayn ama ka agdhoweyn meelaha lagu cabaayo waxay qatar ugu jiraan inay dhalaan caruur aan waqtigooda la gaarin maahan inaad qaadato xad badan oo cuntaa hal mar inay qaadato sidoo kale hooyada waa inay iska ilaalisaa culayska badan ee qaadayso xilliga ay uurka leedahay waxaa jira dhibaatooyin yar yar oo uurka keeno sida mataga iyo lablabada kale markii sidee ku yareyn kartaa waxa ku yareyn kartaa inaad iska yareysid cuntooyinka oo xad yar aad qaadatid oo basbaaska iska yareysid sidoo kale maamooyinka qaar marka caloosheeda ay maran tahay lablaba ay dareema iyana waxa u wanaagsan inay cunaan cunto inay cunaan ayaa wanaagsan inta badan hooyada uurka leh waxay isku aragtaa daal fara badan caajis ay isku aragtaa waxaa loo baahan yahay hooyadu inay nasato ama ay seexato ayaa loo baahan yahay xilliyadaas oo kale hooyada uurka leh waxay isku aragtaa inta badan constipation ama saxaradeedu adag waxaa loo baahan yahay inay cabto biyo badan inay cabto oo fruitska laga shiiday sidoo kale cuntooyinka fiber kale inay cunto ayaa loo baahan yahay sida koostado kale hooyada waxaa suuragal ah in ay confuse ama stress ay noqoto ama confuse ay noqoto xilliga ay uurka leedahay maxaa yeelay hormonal change jirkeedu dhan ay isbedelayo confuse ay noqonaysaa marka waxaa loo baahan yahay inaad raadsato qof farxad ah ka heli kartid oo farxad ku siin karo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala